waxaa maanta si meeqaamkeedu sareeya loogu soo dhaweeyay magaalada Burco xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani marwarooda Cabdi Muuse waxaana taageerayaal aad u tiro badan kooxaha ciyaartooyga iyo sidoo kale mas'uuliyiinta heer qaran iyo kuwa heer gobolba ay kaga hortageen duleedka waqooyi ee magaalada Burco waxaana markii ay soo gaadhay goobtii diyaarka ugu hayeen taageerayaashan xisbiga wadani ay mid u gacan qaaday shacbigii u taagnaa soo dhaweynteeda iyadana halkaasi warfideenada kula hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer kaasi uu ku soo dhaweeyay gobolka xogayaha dhalinyarada iyo isboortiga xisbiga wadani oo ah xubnaha ugu firfircoon xisbiga wadani marka laga eego dhinaca haweenka iyo marka laga eego xagga dhalinyarada waxaan leenahay rooday ku soo dhawo dhalinyaradii Burco isboortigeedii iyo oodaheediiba wadata ku soo dhawo iyo fanaaniintoodii iyo waxoodiba ay isugu leeyihiin ayaanu kugu soo dhaweynaynaa xogayaha dhalinyarada ciyaaraha xisbiga wadani iyaduna halkaasi kala hadashay taageerayaasha xisbiga wadani ayaa waxay taageerayaasha xisbiga iyo sidoo kale mas'uuliyiintaba uga mahadnaqday soo dhaweyntani waxaana ay tidhi waxa farxad weyn maanta ah in la igu soo dhaweeyo gobolkii Togdheer magaaladii Burco halkaas oo ay igu soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta xisbiga ee gobolka mas'uuliyiinta heer qaran ee Hindi ugu horeyso taageerayaasha xisbiga gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee xisbiga oo isaguna safar ku jooga Burco safarkaygu runtii wuxuu daaray waa safar hawleed runtii waxaan gobolka Togdheer u inaanu dhisno laba garab inaanu gobolkii Togdheer dib ugu soo noqono hadaanu nahay xisbiga wadani safarkaygu waa safar hawleed waxaan naga go'an inaanu dhisno garabada dhalinyarada xogayii dhalinyarada nahay runtii waxaan naga go'an xisbigayga ka go'an aniga iga go'an inaanu garabada dhalinyarada dhisno haday tahay dhinaca fanka iyo haday tahay dhinaca sportiskaba waxaad ogtihiin gobolkii Togdheer ee laga doortay xukuumadda Siilaanyo kaliya ta inay gobolka Togdheer magaalada Burco ay ku soo celisay oo quriyata qabyaalad waxaan insha Allah rajaynaynaa siday maanta anigoo rooda Togdheer mid igu tahay sportiskeedii oo midaysan iila joogo inuu xisbiga wadanina ay ka go'antay midnimada Burco intaasi kadib ayaa waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Burco iyadoona lagu soo wareejiyay shaaracyada wadooyinka magaalada waxaana si toos ah loo geeyay xarunta dhexe xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Burco iyadana halkaas aad ka soo jeediyeen xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee xisbiga wadani iyo sidoo kale siyaasi guulada daahir samatar iyo xubno kale inaan mahadnaq weyn gaarsiiyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaranka Soomaaliland iyo xubnihii kala qayb galay doodii adhaxda lagaga jabiyay buurta la saarayay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay waxaad gudoomiye ku dhawaaqdeen talaabo ku dayasho mudan oo geesinimo leh waxaan mar labaad uga mahadnaqayaa sida go'aankooda ay iyagu u lahaayeen ee gudoomiyuhu aanu talo gurigiisa iyo xafiiska toona ugu noqonay iyadoo u socota laba hawlgal kaasoo ah inay xisbiga iyo dhalinyarada iyo qaabka isboortiga hablaha iyo nabadaba ay ku urgasho iyo iyadoo war buuxa inooga sita xaaladihii dhacayay ee kala guurka ahaa ninkii odayga ahaa ee Saleebaan ay yiri indhaha iyo dhagahaba xidha alla ila isaga dhagaha iyo indhaha laga xidhay cadaalad daradiisa soo dhaweynayna maanta xogayaha sportiska Rooda Cabdi Muuse oo soo boqotay gobolka Togdheer aad iyo aad baan u soo dhaweynaa Rooda ku soo dhawaanayna gobolkaaga Togdheer insha Allah waxay guddoonsiin doontaa sportiska iyo fanaaniinta qalab ay u sido Rooda Cabdi Muuse runtii aan aad ugu faraxsanayn maanta Togdheer aanu idin la joogno waxa naga go'aana inaan runtii dhalinyarada wax cusub aan u amba qaadno oo runtii ka duwan sidii xukuumadaha ay imika ula dhaqmaan iyo sida ka duwan runtii xisbiyada marka runtii waan idin la shaqayn doonaa waan idinku soo noqon doonaa Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakeyle muuqbaaya caalamiga Star Burco.